waxaa la soo karaa qiyaamihii Xasan Sheekh sameynayay wuxuu ahaa ergeygiisii khaaska ahaa ee ganacsiga Khayradar Cabdiraxmaan Faroole inuu xalay weerarka airportka isagoo ka dameeyay waxa la soo karaa marka madaxweynuhu markaana waa la yaabanay waxa uu arko laakiin waxa uu arkay waxay ahayd wax isagoo qorsheeyay oo gacanta ku hayay mar hadii ergeygiisii uu falkan xalay ka dameeyay isaga iyadaas micnaanaysa saan u aragnaa kulan wacan daawadayaal iyo dhageystayaal halka adiga la socotaan waa warbaahinta daljir ee wareysi gaar ah ayaan la yeelanaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa oo aan ka wareysanayno dhacdo xalay ka dhacday magaalada Garowe wasiir ugu horeyn soo dhawow shaqaaqo ayaa xalay dhacday duleedka magaalada Garowe dhimasho dhaawac ka dhasheen see wuxuu dhacay waxay wuxuu dhaceen nasiib darro ahayd wixii xaladka dhacay waxa dhowr jeer hore dhacana way ahayd waxa la soo weeraray ciidan waday qalabkii doorashooyinka oo gudbi lahaa oo airportka meesha marayay waxa soo weeraray niman isabaabulay oo jabhada oo ku jira beertii Khadar Cabdiraxmaan Faroole oo ah ergeyga gaarka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud ciidan halka xaruntiisa ku jira ayaa soo weeraray laba nin oo booliisana meeshaas ayaa lagu dilay hanti badan oo meesha oo leedo gas station yana waa ku burbureen arintaas nasiib darrada ah ayaa xalayto dhacday waana markii saddexaad oo tan oo kale ay dhacday oo hadda ka hor waxa dhacay sidaas oo kale ayaa waxa dhacay gooja meesha la yiraahdo Karindhig la isugu istaagay qalabka diiwaangelinta mar dambana waxa la weeraray jaamacadda BSU iyo madaxtooyadaba isla kooxo ayaa soo abaabulay reer nugaaleeda ilma adeera magaaladan degan iyagu kaligood raba inay khalkhal galiyaan magaalada caasimadda rahmad u qabsadaan tooda kale inay socodsiiyaan ay u tahay arinta nasiib darro ayaa dhacday dabcan dawladdu saddexdaasba way xakamaysay iyadoo way xakamaysay arintana diiwaangelinteena si wanaagsan bay ku soo dhamaatay miimaduna waxay ahayd xaladto inay qabsadaan qalabka doorashooyinka u socday gobolada bari qalabkaasi waa tagay isaguna si nabad ku tagay gobolada bari buu joogaa hawshaasina saasay u dhacday waana la macaamilayna la tacaalayna wayahay waxaad isticmaashay eriga jabhad Puntland ma jabhada ka jira haday ciidan jabhad ma jirto la ogaa laakiin hadii ciidan aan cidna ka amar qaadan oo ka baxsan hayndaabka sharciga ay si sharci darro ah isu abaabulaan oo xabad u ridaan damagci loo bixin lahaano ma garanayo beerta Khadar Cabdiraxmaan baa laga abaabulay gurigiisa ay ahayd airportkana lagu soo weeraray airportka maanta waa xiran yahay wax faleed ma jiraan wax socodayna ma jiraan haddeerna sidii bay ugu calaqan yihiin suuyadii meesha ay u taagan yihiin khasaarahaas oo dhacay marka waxay noqon karaan oo aan jabhad ahayn ama shufta aan ahayn anigu haddeer ma garan karo aan ku qaxo marka yaa hogaaminaya marka idinka dhankiina ka warhaysan may dhankayga ciidanka booliiska ayaa arintu ay ahayd dhinaca dawladda waxaan ku saan ku sheegay waxa la waday qalabkii doorashooyinka oo la daadgureynayay gobolada bariga u socday ujeedaduna taas ay ahayd inay arinta meesha ku qabsadaan oo qalabka la wareegaan bay ahayd sidii hore bay u sameeyeen jaamacadda ay ugu soo weerareen Karindhigna ay ugu galeen xalana tiyo kale ahayd marka ciidamadu waa isdifaaceen qalabkiina waa gudbiyeen dawaana isxakameeyeen sida kale laakiin xaqiiqada dhacday oo nasiib darro ah taas weey waxa kale oo taa dhinac socotay in ciidamadii jiray furimaha ay iyaguna ka soo baxeen oo ciidankii habeenkii 6 Febraayo habeenka jaamacadda la weerarayo laas caanana waa la weeraray maantana tiyo kala dhacday oo ciidankii furimaha jiray oo maaragtay dhinacaas jiray ayaa iyaduna ka soo baxay furimihii dagaalkiina laas caanana waa weeraray isku sibay u dhacday taas ruuxeeda waxay leedahay akhriskeedu waa arin soo noqnoqotay laba jeer oo la yaabkeeda leh way hagaag yaa ka dambeeyay marka dagaalka xalay dhacay ayaa dhihi kartaa wasiir oo aad farta ku fiiqaysaa waxaan farta ku fiiqi karaa dadkii ka dameeyay labadii dhacdo hore tii Karindhig iyo tii jaamacadda koox reer nugaaleeda la yaqaano magaciyo leh intaan ba abaabushay siyaasiyiin isku sheega iyagu yiraahdo waa markayagii ceelka annaga markayagii aanu ka cabilahayn weeye wax kale oo soconayaan ma jiraan barnaamijkana hal la joojiyo himilada dadka reer Puntland iyo hindisaheedana waa hor istaagayna taan baan ku tuhmaynaa laakiin waxay u taalaa sharciga ay u taalaa inay iyagu magaciyo wax magaciyo ay sheegaan way madaxweyne Xasan Sheekh dhawaan wuxuu ka digay Puntland inay qalalaase ka dhaco oo ama burburto sidoo hadalku ra'iisul wasaaraha sidoo kale uu ka dambeeyay ma la isdhihi karaa madaxweynuhu waxyaabihii ka digay baa soo baxayo oo dawladdu aysan arkin waxa la soo karaa qiyaamihii Xasan Sheekh sameynayay wuxuu ahaa ergeygiisii khaaska ahaa ee ganacsiga Khayradar Cabdiraxmaan Faroole inuu xalay weerarka airportka isagoo ka dameeyay waxa la soo karaa marka
madaxweynuhu markaana waa la yaabanay waxa uu arko laakiin waxa uu arkay waxay ahayd wax isagoo qorsheeyay oo gacanta ku hayay mar hadii ergeygiisii uu falkan xalay ka dambeeyay isaga iyadaas macnaanaysa saan u aragnaa waa hagaag agabkii doorashooyinku hadda xagee yeelan agabkii doorashooyinku waa gudbay waa nabad tagay goboladii loogu talagalay ayuu tagay kuwa kalena waa dhacayaan halna ku sheegaya doorashada Puntland way dhacaysaa dadka reer Puntland baale waa doorasho deegaan weeye 400 oo kun in ka badan baa isdiiwaan gelisay 4 qof oo isku jifaaha magaalada Garowe joogtaana go'aankeeda ma gaari karto waa sharcigaanuna la tiigsanayna oo la macaamilayna himilada dadka reer Puntland ciidamo hor istaagay karaysa way laba dhacdo hore ayaa dhacaysa sheegtay tan waa tii saddexaad hadda waxay maraysaa in dad dhinto khasaaraha ugu badan ee ka dhalan karay ahayd wax la xisaabtana oo ka dhacay cid loo raacday wax loo raacday dambi loo qabsaday midna ma jirto haddii san dawladdu mas'uuliyadda ammaanka wadanka qaadi karin maxay isugu hawlaysaa hawlahan inta leeg ma iska nasato balay dadka badan is weydiin karaan maxaad ka jawaabtaa waa sax weeye waxa weeye hadda waxa dhacay waa dambi weeye fal dambiyeed weeye fal siyaasadeed ma fal dambiyeed baa dhacay kii kan dhiig iyo kii jaamacadda iyo kan hadda intaba weerar qaawan oo lagu soo qaaday dawladnimada ayuu ahaa waana sharci horgaraysan hay'adaha dawladda sharciyada Allah xiriira ayaana arintaas ka hawlgalaya cid walbaana sharciga way wajahaysaa iyaga laga rabaa inay istifaacaan badankood waa dad qurbaha ku nool baasaboorashiya haysta carruurtoodii dibadda u joogto nabad ku nool sharciga iyo dadka reer Puntland way wajahayaan reer nugaaleedna fariin gaar ah ayaa ku wajahan oo waxaan sameeynaya waa wiilal reer nugaaleed ah oo magaca reer nugaaleed huwan oo raba rahmad inay u qabsadaan dalka Puntland intiisii kale oo loo baahan yahay inay ay la macaamilaan oo warcad ka keenaan oo is wajahaan oo ama dawladnimadu ay shaqayso ama dawladnimadu ay burburto optionkaasna wax la qaadan kara ma laha dawladnimada reer Puntland way jiraysaa wixii xadka sharciga ka baxsanna waa la macaamilaya marka laga tago reer nugaaleed oo aad farta si gaar ah ugu fiiqayso oo dabcan adigu baad reer nugaaleed tahay waxaa jiray siyaasiyiin badan oo xalay shir qabtay ugu dambeyntii madasha siyaasadda ay la baxeen waxay ka soo horjeedaan say dawladdu wax u wado nuxurka warkooduna wuxuu daarnaa inaysan dawladda aaminsanayn oo dawladda aan la aamini karin gacanta dawladdu gacan aamin ahayn say hadalka u dhigeen in lala hadlo oo lala fariisto dawladdu la fariistay ay codsadeen si gaar ah madaxweynaha ma la hadlaysaan oo ma la fariisanaysaan tabashada siyaasadeed ee siyaasiyiintaasi qabaan diyaar ma inaad kala xaajootaan qof kasta oo siyaasi ah oo tabasho siyaasi ah qaba oo silmi ah oo suuqa taagan ama cid ka tirsan diyaar baan u nahay la macaamilo laakiin taa macnaheedu ma aha nin qori caaradiis banka ula baxay oo xayndaabka sharciga ka baxay oo maalinba dawladnimada weeraraya oo jaamacadaha weeraraya oo airportkii xiray oo tayada kaliya soconaysa leh taasaan ugu hadda siyaasaddu ma arko waa shireenimo warqad soo saaray oo xalay meesh ka soo saaray dad badan bay isugu dhex jireen qaarkood dadka hogaaminaya ficilkan askariga ah weeye qaarkood dad siyaasiyiin oo ay la gashay weeye haddana xaqiiqadii soo baxday iyagu waxay lahaayeen hana la hadlo doorashada hana la hadlo doorashada socota waa doorashadii golaha deegaanka tii madaxweynahana maaha tii baarlamaankana maaha dawladana mandate baa haysata dadka reer Puntland baa doortay kursigan in la isku fariisto maaha su'aalahaasna diyaar baan u nahay inaanu kala hadalo cid kastoo tabasho qabtana waxaan diyaar u nahay inaanu miiska la fariisano laakiin xayndaabka sharciga cid ka baxsan oo dawladnimada afduub u haysata taasi dadka meelna uma wado taa weeyana mid aan rabnaa inaan wajahno iyaga ruuxooda waxa la rabaa inay sacday dadka siyaasiyiinta isku sheegaya waraaqaha soo saaraya iyaga ruuxoodu hadda liis dad badan bay ahayn dadka meesha ku qori waxa dhacayna dad gaar ah ayaa sameynayay iyaga ruuxooda waxa laga rabaa inay ku kala miirmaan oo haday line-ka qaateen xabadda inay ridaan oo dadka reer Puntland ay rahmad u haystaan si baa loola macaamilaya haday yihiin siyaasiyiin concern qaba siyaasadeedna wala hadlay dadka reer Puntland bay u taalaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyiinta Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayuu ahaa aad baa mahadsantahay wasiir ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka
iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 faybar keebalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka. shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.